بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء مدحوينياشii hore guddoomiyaha gobolka Banaadir labada madaxweyne ee Hirshabeelle iyo Galmudug xildhibaanada sanatarada iyo dhammaan murashaxiinta saaxiibada iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale dhamaantiin waa idin salaamay. Salaanka bacdi waxaan hambalyeeynaa oo bogaadinayaa heshiiskiisa afgaradka maanta halkan lagu gaaray kaasoo ku yimid dadaal dheer iyo wada hadal dheer iyo wada xaajood dheer oo muddo dhowr cisho ah soo socday runtii gacan ay ka geysteen dad badan oo kala duwan oo ay hormuud u ahaayeen labada madaxweyne ee Hirshabeelle iyo Galmudug iyo runtii mas'uuliyiin kale oo kala duwan. dhacdadii dhacday 19 Febraayo run ahaantii waxay ahayd barmadow oo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba ku taala cabsi badan iyo walwal badan beertay inuu dalkani hanaankiisa dimuqraadiyadeed iyo qaabkii qori isku dhiibka ahaa iyo nabadda ahayd oo ka weecdo. dhammaan cid kasta way ku mahadsan tahay dadaalka ay ka geysatay sida arrinta ayada ah aan directionkaas qaldan aan loo aadin ee loo aado dhinac nabadeed, dhinac dimuqraadiyadeed iyo dhinac doorashooyin lagu wada qanacsan yahay loo aado. waxaan rajaynayaa wada hadalka maanta meeshan ka dhacay oo ahaa runtii wada hadal aad iyo aad saraaxo iyo run isku sheeg tiro badan uu ku jiray inuu horsoodi doono dalku inay doorasho nadiif ah ay ka dhacdo, doorasho xaq iyo xalaal inay ka dhacdo, doorasho qori isku dhiibkii dalkani uu ku soo caanamaalay muddadii la soo dhaafay inay ka dhacdo inuu horsoodi doono insha Allah taala. meeshaan waxaa ka dhacay runtii wada hadallo aad iyo aad u mug weyn, wax badan oo badanna looga wada hadlay loogana wada xaajooday oo ay ka mid tahay dhacdadii 19 Febraayo, doorashooyinka soo socda iyo sidii loo taabagelin lahaa. waxaanan ku ballanay in wada hadalka halkaa laga sii wado si dalka doorashadiisa iyo hanaankiisa doorasho ay u noqoto mid heshiis ah. ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo fahamka iyo tanaasulka iyo wanaagga badan oo ay muujiyeen wada hadallada iyo waxa socday. sidaas si la mid ah midowga murashaxiinta oo run ahaantii aad iyo aad niyo wanaagsan la soo galay hoolkan la soo galay ayagana dhankooda tanaasul aad iyo aad u tiro badan ayay muujiyeen. waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan baan leenahay nabad wax dhiba iyo wax colaad iyo wax mushkilada ma jiraan. guryihiina iyo hooygiina nabad ku seexda insha Allah taala. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.